wiilka oo ayadoo wiilkayga uurkiisa leh baa xaafadda ay degan tahay gabdha Soomaaliya nala degan waxaa jira nin Danish oo xabsi ka soo daalay oo nimankan bluetooth isku maaragtay isku sameeyay weeye waa nin murqaweyn oo dhisan mar xabsi uu ka soo baxay ninkan islaamaha marka Soomaalida cunug yar naag musaaxib leh Danish naagta Danishka hal wiil baa haysataa garse ciyaalka markay dibadda ku ciyaarayaan halka wiilo adeerka u yahay ilaa naagta saaxiib ahaan buu kula degan yahay cunug markuu yiraahdo ninkaas ay la hadlay ciyaalkii uu soo dilaa Soomaalida way inantii xamdi kalgacal ahayd oo waxa weeye heel iyo hooba isla garab taagtay malyuun roobre wareer TikTok xaalad adag oo ka soo korortay dagaalkii u dhaxeeyay milyuun iyo ninkii ay qabtay oo cirkaas ku shareeray saddex cisho oo guri ninkaasi ku jiray magan uu yahay dantu waxay biday inuu hoos wax ka soo iibsado kadib markuu ku jiri waayo gaajo ugu dhintay hoos buu u degay cunto soo gadu isiri ninkii waa lagu tuntay waa lagu garaacay meyd ahaan baa looga tegay ilkii kore iyo kuwii hoose intiiba ninkii waa laga riday xaaladii cirkaas isku martay cirka wali waxaan ka baqayaa xaaladdu inay reero iyo qabiilo gasho sasaabta u socoto walow ninka dadka garaacay ee ku tuntay ee ilkii ka daadiyay ee meyd ahaanta uga tegay ay yihiin dad Soomaali sheegta oo ka carooday arintii ceebta iyo faxsharka ahayd ee ugbeyd ee ninkaas u geystay haddaba ninkastoo gabar saa u galow xaaladda xun baa ku sugaysa in lagu takooro beerka laga mar xabsi uu ka soo baxay ninkan islaamaha marka Soomaalida cunug yar naag musaaxib leh Danish naagta Danishka hal wiil baa haysataa garse ciyaalka markay dibadda ku ciyaarayaan halka wiilo adeerka u yahay ilaa naagta saaxiib ahaan buu kula degan yahay cunug markuu yiraahdo ninkaas ay la hadlay ciyaalkii uu soo dilaa Soomaalida gabar aan darisahayn inay daawanaysaa dhici karta garse oo ninkeedii joogo buu maalin dhulka dhiga sifa maysa dacweyn ninkeedii kama celin ninkan adiga laba gabdhood saddex gabdhood oo Soomaaliya markuu ku soo tuntay oo hooyooyina maalinkii dambe wallahi waxaan u yimid gabadhii uurka ilahayd asagoo daaqada kala dooday marka gurigana dhulka waa istuuwan wax la yiraahdo waay ayada uur bay leedahay waa fool asagoo daaqada kala doodayaan ugu yimid maanta dalaq buu soo yiri wuu soo fadhiista maanta dalaq intuu soo yiri ayuu soo dhax fadhiista shalay wuxuu lahaa milyuun 3 bilood ban xaaraan ku haystay ilmahayguna waa wicil meher la'aan ban kaga dhala maanta muxuu yiri aan isla dhageysanay hada barshadkii warkiisa dhagihiisa iyo afkiisa isma maqlayo daraad wuxuu yiri xaaskayga hadan maanta kala tagno bari ma soo caayayo waxaan inii keenay asagiyo caayaya maanta uu dara shalay uu soo caaytama waad ogeydeen wuxuu yiri ilmaha ma dhalin 3 bilood ban xaaraan ku haystay maantana muxuu la soo fadhiista hadda dhagihiina isiya warkii shalay amba daraad ay nigu celinaya shalay isla qadadii sida la ka haystaan ku maqano sixir baan ku maqnaa haddana wuxuu sheegay 3 bil inuu la noolaa bilaa meher la'aan haddana wuxuu sheegay hal bil markay si yaqaanayso shukaansanayeen inuu guursaday wuxuu sheegay ilmihiisa shalay inuu xaaraan ahaa usagu xaaraan ka dhigay maanta wuxuu sheegay inuu leeyahay ilmahayga meher buu ku dhashay xaaskayguna xalaal bay yahay afis baanan weydiisanaya ta walaalayaal halkee baan u raacnaa war waxa la yiri waayeel waa ka suru inagoona isyeelin waayeel waa ka suru dawaynagoona isyeelin Soomaali Maxamed war qofkan ma neefa ma la lacba ma dhimirba halkan u qaadna hada qofkan ilaahay baa milyuun dhaafiyay because hableeda yar yar buu ka kofsan laayay ilmadeeda yar yar horta asxaabteeda qaaliga ee waxa la yiraahdaa qamriya cabdirayaan saan way horta waa kana waa energy drink kana maxaa waay biyo cad waay oo la dhahay asagana qamriya ay wadata horta qamri ilaahay ka magan galay fir iyo faracna umalihi ilaahayna waxaan ka baryayaa qof walba balood inuu ilaahay ka madoobeeyo waa wax adduunka ugu xun ee qofka bini'aadanka loser ka dhiga kara ee lazy ka dhiga kara waa balwad alxamdulillah waligeena balwad ma yeelanin 5 sano Nairobi jooga dad balwad la socota ay dhaadeen hadda ma ahan gabdho Soomaali oo waxa aqoonay ani aan gur la deganaa istaaga xashiishka ka cabo ee balwad leh ee cocaine ka sanka ka qaato oo balaayo dhan isticmaalaan markaas aan baran waay ma hadda anoo hooya oo ma sha Allah oo boosumina barana ilaahu rabbi raxmaan oo waxa ku fasahaadinaa iga hay soo marka inta
كومنت قلدن إيسو قرتي أنت بين إيجي شكتنا إلهي أدونك كو عذاب آقران وما عفنين أنت أصلا إدكو سو قبقبي هذا dad badan oo waxaan arkay oo ani isoo caanay niman badan oo camal la'aanays please camal yeesha hada shaqaalaanada si shaqaaleysina boss ay gabanaan welcome guys في كلام قف حقا wax ma galaan daadana qurahay وأدونك ما أعتين ضد قبله هذا الوجود برايناي وريا إثنين تهريب ملك شيء حقيقة قدام بيسي وريا قبل الماس علم على أحمد إلا يهدوا حويا كهلا الشيء طاير رجل الحمراء اللي عندك هذا الشنو عبد الرحمن عبد الشكور وريا فيري هوية ما حد كان عبد الرحمن عبد الشكور كوا هو تي الوجود دوبي وريا رجيسي فضل الله صار سبسكرايب إلهي خيرها قصية واحد دقات فرح ده إلهي قصية قصة بير حق صورتي في أنا ورركي قدام بيبك هذا بقينا وحن قريب مقال خلاصي اللي قرأ سائر وحلا ضاوضيال فربضن ومقالة دقدقة إيا ورركا صح ده إيه الدقدقة إنه هلكا كباه إنه أنا وحوي إنا لو ذاك سيد هلكا خوارك وحوي إنا أنتي حمدك هلكا على حيد وحوي يهيل يهو بس اللي قرب تاكتي مليون روبري ننكيدي oo waxa weey raali galin bixiyay milyan rooble ninkeedii oo waxa weey la shirdiray milyan rooble ninkeedii oo tuuqaadaba la shabiyay waa war la yaab leh degdeg sida halka ku aragto inaantii rajaan bashaashahay oo ooynaysa ayaa muuqaal soo duubtay inantaas muuqaal ay ka sameynay waxaan inoo sheegay in horta ma marka ay meherka dhigatay sida iyadu sheegtay waxa tii ninkaygu waa nin muxsina balse ninku taatuub halkaa ku leeyahay qoorta ninkan baa muuqaala laga helay isagoo xeeb ku dabaalanaya oo gabadh caddaan ah waxa weeye la baashaalaya adigu oo waxa weeye meel waxaan u sheegaa berked ayuu kula dabaalanaya silsiladeeda gabadhaas qoorta ku xidhan ayuu ka saarsaarayaa taasi waxay ka dhigan tahay inuu ninkani saaxiib hore soo lahaa dadka isguursada laguma mashquulo balse dhacdada kale ee la yaab kale ayaa ah in gabadhaas rajaan iyo waxa weeye ninkaasi markay isguursadeen ay xaflad dhigteen xafladaas oo waxa weeye ay wax abcabayeen dad fara badan oo baraha bulshada isticmaala ayaa been abuur gabadha ka sameeyay oo ku tilmaamay inay ahayd waxyaabaha ammaanka dooriya ee khamriga balse hore ayaan u sheegnay in ay gabadhaas sheegtay in aanay iyadu waxba cabin oo aan meesha la shoogayba aan waxba lagu cabin gabadhaas markaa sawirka lama soo dhigi karo ay hayso waxaad cabayso waayo intaas ayaa bannaan balse waxa weeyaan adiga arka iyadaaba soo bandhigtay oo waxa weeyaan waxaad tidhi waxaasaan cabayay oo waxay ahayd waxyaabaha sharaabka iyo caadiga ah ee baawar kale bay ahaayeen balse may ahayn waxyaabaha maanka dooriya waa gabadh soomaaliyeed oo la dulmiyey ayaan odhan karnaa sababtoo ah rajaan oo ah gabadh dhalinyaro ah ayaa heshay nin muxsin ah sida iyadu ku tilmaantay balse shawaab baan iyadana siin lahaa waxaan odhan lahaa ninka aad guursatay hadduu muxsin yahay dadka muxsiniinta ihi taatuu ma marsadaan ninkan qoorta ayuu taatuu ku leeyahay waxaa la helay muuqaalo isagoo berkad ku dabaalanaya oo leh waxa weeyaan gabadh ay saaxiib yihiin hadalla qurahe aan halkan laga baahin karin waxaas iskaga kaalay oo dhan ma hadda mise wixii hore gabadhan waar uma hayna inay ninka soo muxsinisay hadda ninkeedii way qarsatayba iyadaaba bad gashay oo nin caddaana intay guursatay baraha bulshada keentay waa rayaan bashaash reer Nairobi ah oo hadda sidaa loo googoostayba waxbaba lagagama teginba inantii rayaan bashaash ahayd qof walba halkuu ka soo gaadho intayda isi anigana adiga arkaya iyadoo ooynaysa maalin dhoweed muuqaal ay soo duubtay oo calooliyo lahaa siday sheegtay gabadhaasi iyadaa ninkeeda xor u ah siday sheegtay waxay tidhi muddo dheer ayuu safarii soo socday ama muddo dheer ayaan xidhiir wada lahayn balse maanta waan ku guulaysanay dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa garab ku siiyay weliba ha u badnaadaan dumarka Soomaaliyeed ugu dambeyn rayaan bashaash ayaa soo bandhigtay waxay cabaysay inaan ahayn waxyaabaha ammaanka dooriya sidaad halkaa ku aragto waxa weeyaan Suldaan Amiir oo guursaday gabadh yar oo dhalinyaro ah oo baraha bulshada caan ka ah arrintani waa waxba kama jiraan waa been abuur muu guursan Amiir meel waxa weeyaan
hiig lasoo wada qabsaday oo qoro lasoo wada garay bay ahaayeen oo guur been abuura lacaga lagu kala guranayay lacag 45 waxaan u sheegaa ayaa loo diray hadiya 45 kuna ayuu intaa ku helay sida halkaa ku aragta waxa weeyaan mukhtaar oo waxa weeyaan raali geliyay waxa weeyaan Maryuun Rooble ma ninkii lahaa inanta waxa weey Maryuun Rooble markay caadayanayso aniga nadiifiya inantaasoo waxba yahay baa ii timi iyadoo qof weyn noqotay baan ilmo yar ka soo saaray waa sidoo hadalka u dhigay waxa weey labadii lamaane ee isfuray ee gogashooda dib uga wada sheekay kulli waxaan aragnay muuqaalo ay soo wada duubayaan oo isku faraxsanaayeen balse wadaga arkaya hadda dhiiqada socota ee la leeyahay ba arrintii waxa weeyaan horta balse muuqaalka ku xiga muuqaalka kale ku xiga digreer ay ka soo saarnay labada qof arrintan sidan u dhacday ee dhiiqada ah ee ku dhaco ku daraqda ah oo waxa weey leendanaanta ah ee waxa weeyaan handalada ah ee shafida fashida la isu aasay ee darawiyada la iskala dhacay ee wax walba saalis ugu yiri armay noqotaa arrin shileena oo lacag lagu raasanayo ama daawadayaal fara badan lagu helayo kulli lacag way ku heleen hadda muuqaaladii ay duubeen oo been ma taas balse arrintaa hadhow hadii uu yiraahdo waa israali gelinay oo wala isku kaayay celiyay maxaa laga oranayaa kulli anigu mid baan ka leeyahay ninkaas gabadha hadduu ku noqdo xaal ha bixiyo haddii kalena waxa weeyaan mar walba xaal baa lagu leeyahay balse siduu isagu sheegay yaa ku horreeyay labadooda ka sariirta dib ugu noqday ee dhiiqada lugaha intuu la soo galay isagoo dhiiqo dhoobo wata dadkii la dhex yimi ninkeeda ayuu ahaa iyaduna markii dambe aragtay ninkii oo waxa weey dhiiqa lugaha u geliyay ayay raran iyo dab iyaduna shiday sida halkaa ku aragtay waxa weeyaan Aweys Baafow oo aynu garanayno siduu ahaan jiray ilaahay baa mahad iskale wadaga arkaya walaalkan Aweys Baafow maanta quruxda iyo nimcada saaran yaa isgarab taagay hadaba ma ogtahay in fanaan caana oo Soomaaliyeed uu bil u qoray oo lacagta uu hayana bil walba u soo diro fanaankan ayaa isweydiinaysa waa Cumar Shooli oo ah fanaan reer Mareykan oo xabsi galay waliba ku jiray muddo dheer ugu dambeynna ka soo baxay muuqaalada ay ka sameynay sababta xabsiga uu qareynay halka ku sheegnay ugu dambeyn walaalkan Cumar Shooli khayr ilaahay ha ku siiyo ayaan leenahay maadaama heerkaas soo gaarsiisay walaalkan Aweys